Weli waxaa socota ballaarintii gudaha isbitaalka kadib markii Siyaad Specialist Hospital loo soo guuriyay dhismahan weyn ee kaabiga ku haya isgoyska caanka ahi ee Tabakaya Madow degmada Dharkiinley. Ayuu wax ka yar 6 bilood uu halkan deganaa ama ku shaqaynayeen dhakhaatiir uu ugu horeeyo aas-aasaha ahna maamulaha guud ee isbitaalkaasi Dr. Cabdilaahi Siyaad ku qabtay waxqabad caafimaad oo la taaban karo, kaasoo laga caaganaa inaanu marnaba wax saameyn ah ku yeelan dardargelinta howlaha lagu horumarinayay adeegyada uu bixinayo isbitaalka, lana diidanaa in uu gaabis ku yimaado amaba uu hakad galo howlaha kale ee caafimaad ee isbitaalku u hayay dadyowga ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka. Waxaana laga carabaabi karaa isbedeladaasi jadwalka shaqada oo habeen iyo maalinba saacad kasta ay kuugu diyaar yihiin isbitaalkaasi dhakhaatiir iyo howlwadeenno heegan buuxa la geliyay, iyaduna aysan ka marnayn xafiisyada dhakhaatiirta soo fadhiista Siyaad Specialist Hospital waa iminka kuwa si toos ah u shaqeynaya digtooreysada qaabilsan daweynta cudurrada dumarka, walow shaqada ugu culus ay ka socotay goorta aan booqanay isbitaalka xafiiska dhakhtarka daweynta cudurrada carruurta iyo xanuunada ku dhaca maqaarka Dr. Cabdilaahi Siyaad. هذا لما جرى أكسجين كان سيننا كده بقى مركز لما جرى أكسجين كان سيننا سيداود كده أو مش وقف عصرة بدن أنت نقص جوها سووا بابا أمر سيننا طبعا دخل سوينا مر لبعض كوعلينا كده بقى مركز هذا ذاك مركز أو قصة أنا أسبوع markaaga nadiifi nadaafadaadan ogow meesha jiifanaysid ogow waliba xitaa waxa loo baahan yahay joodariga raashada saaran oo kale ay sidoo kale muhiimada waa inaad siisaan dharka adiga aad isticmaasho kale waa inaad biyo karkarsaa dhexdiisa joodariga daawadan lagu qoray haddii saas aan la samaynin guriga ma ka baxayo. Dr. Cabdilaahi Siyaad ayaa kaga duwan goobaha kale ee caafimaadka. Bukaanka wax shuruud ah ama caqabad ah kama hortaagna la kulanka dhakhaatiirta, iska daayay in laga qaado lacag qaabilaad ah. Waxaa mararka qaar loo dhaafaa khidmadda shaybaarka, daawada iyo jiifkana tabartooda waxaan ahayn weligood laguma xujeyn. Waa sida uu ka dhawaajinayo agaasimaha isbitaalka Dr. Cabdilaahi Siyaad. horta isbitaalka Siyaad Specialist Hospital bulshada Soomaaliyeed aan warbixin fiican aan ka siiyo. horta isbitaalku wuxuu ku yaalaa Muqdisho Dharkiinley gaar ahaan Tabakaya Madow. isbitaalkana inta badan wuxuu ka shaqeeyaa daaweynta carruurta. waxaan kaloo hadda aan kusoo darnay qaybta haweenka oo ay ka faa'iideysan doonaan dad aad u fara badan, dadkaas oo ay ka mid yihiin dadka gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Dharkiinley iyo Kaxada. isbitaalka horta wuxuu furan yahay muddo 5 bilood ah. furnaanshihiisana kolley saan dareemayo waxaa loo qabay baahi aad u weyn dib u balaaran ku sameynay. marka waxaan rajaynaa dadka degan degmada Dharkiinley iyo dadka degan Kaxada iyo Wadajir iyo dadka kale oo degan gobolka Banaadir oo kale inay ka faa'iideysan doonaan. waayo bukaanada qaar waxay kaaga imaanayeen meel ka baxsan Muqdisho. bukaano way jiraan ugu yimaado gobolada oo kale sida bukaano saaka noo yimid oo kale ka yimid gobolka la yiraahdo Shabeellada Dhexe oo kale
gobolka Shabeellada Hoose oo kale inkastoo ay noogu badan yihiin gobolada ay sheeg Shabeellada Hoose oo kale gaar ahaan Walaweyn ilaa iyo deegaanada ku teedsan oo kale way jiraan bukaanno ugu yimaada. Doctor, kiisaska ugu culus ee aad la kulantay maxaa nagu sheegi kartaa? Horta aad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto maanta jaaniskan. Baryahan waxaa jiray xanuuno ku soo kordhay carruurta, khaasatan xanuunkaas oo ah ilmihii in lagu arko qandho, hooyadii qandhadii ay dareemi weyso ama hooyadii ay siin weyso keer qandhadii ay ka jibin weyso, kadibna cunuga sidaas oo ku sameeyo wax la yiraahdo febrile seizure. waxyaabaha ugu badan oo marka isbuucyada noogu imaanaya ayay ka mid tahay. waxaana keenay waxyaabahan hadda socdo sida hergebka oo kale. hergebkan inta badan waxyaabaha u sabab waxaa ka mid ah in cunugii ay ku dhacdo oo kale pneumonia, ama cunugii inuu naqaska ku xirmo, ama cunugii neefta inay dhibto, ama cunugii sidoo kale qandhadii inay ka badato, qandhadii heer ay gaarsiiso cunugii inuu gaaro wax la yiraahdo febrile seizure oo ah cunugii inuu qalal ama jarees uu sameeyo. marka waxyaabaha noogu badan waa horta toosiyada hadaa maqashaan wuxuu ka yimid bulshada masaakiinta ah. qofku markuu bulshada masaakiinta ka yimid waxaa dareemi kartaa wacyiga nolosha ay ku nool yihiin. sidaa daraadeed anaga isbitaalkeena wax lambar ah bukaanada lama weydiiyo, wax waqti ahna kagama lumo. sidaa daraadeed markuu bukaanka yimaado wax walba markaas u baahan yahay anagoo lambar aan weydiinin, wax qarashna aanan weydiinin, adeegii uu rabana u qabanaa. daruufii iyo baahidii markaas keentane asigu waqti badan aan ka bixinne waa u fududeynaa. waa duustii farsamadii codayntii anigoo Maxamed Yuulka inta warbixinta lamid ah kulmi doona asxaabay nabadgelyo.